subaxnimadii talaadadii 11 November ee 2024 wax yar kadib 10 barqanimo markii ay saacadu ay ahayd jawiga ka jiray garoonka diyaaradaha ee Birmingham ee dalka Ingiriiska wax uu ekaa mid caadi ah. diyaarado ayaa soo degayay kuwana waa ay safrayeen. rakaabku waxay soo qaadanayeen boorsooyinkooda. socodka garoonkana waxa uu ahaa mid si joogto ah u socda. wax kasta caadi ayay ahaayeen, hase yeeshee hoolka lagu sugo diyaaradaha waxa ku kulmi doona sheekooyin dambiyo waaweyn oo ka dhacaya dalka Ingiriiska iyo magaalada Birmingham isla maalintaasi. shabakado dambiyo oo isku xiran ayaa lagu qabtay iyo nin siday boorsooyin ay ku jiraan daroogada ugu halista badan dunida ee loo yaqaan cocaine. haddaba sidee ku dhacday, sidee lagu qabtay, maxaase lagu ogaaday kiisaskii baaritaanada ee kadib la sameeyay? waa sheeko aad runtii la yaabi doonto. hooyo da'deedu lagu qiyaasay 60 jir oo howlgalkan madax u ahayd ama hogaaminaysay ayaa soo bixi doonta iyo caruurteeda oo ilaa 7 gaaraya oo mid kasta uu qayb ka ahaa safrintan daroogada midda ugu halista badan dunida gudaha dalka Ingiriiska. runtii waa sheeko xiiso leh. kusoo dhawaada boggeena Xuseen Xaaji Xasan ee YouTube-ka iyo mar kale oo aad kaga bogan doontaan sheekooyinka dabagalka iyo baarista lagu soo gudbiyo bogagga caalamiga ah. marka hore haddii aan ku horeyno, waa kuma haweeneydaasi? waxa la yiraahdaa Frances Kouser. waa 54 jir, qiyaastii 60 sano ayay ku sii socotaa. waxay ka soo jeedaa magaalada Bradford. waxay u muuqatay kolkii hore hooyo, waana runtii waa ahayd hooyo iyo ayeeyo ayay runtii ku suntan tahay, laakiin waxa ay u muuqatay qof saliim ah. bulshada dhexdeeda waxa ay ahayd haweeney ilmo korsata, howlaha gurigana u taagan, kana muuqata dadka dhexdooda. laakiin waxa muuqaalkaas ka dambeeya mid kale oo dahsoon. waxay si xeel dheer ay u dhisaysay una maamuleysay shabakad caalami ah oo tahriibinta daroogada ka shaqeysa, taas oo qiimaheedu uu gaarayay malaayiin dollar. baarayaashu markii dambe waxay ku tilmaameen inay ahayd laf-dhabarta shabakad casri ah oo ka shaqeysa dhoofinta daroogada ugu halista badan dunida ee loo yaqaan cocaine, taas oo ay ka soo dejin jirtay garoonka diyaaradaha ee Birmingham iyo garoomada kale ee gudaha dalka Ingiriiska iyada oo ka soo dhoofin jirtay dalka Mexico. Kouser ayaa magaceedu loo yaqaan. kaligeed ma aysan ahayn. cadeymaha maxkamadda la hor keenay ayaa muujinayay in ay xiriir la lahayd dad dibadda ku sugan oo ay ku jiraan nin Pakistan jooga oo loogu yeeri jiray uncle adeer, kaas oo door ka qaatay diyaarinta, isku dabaridka iyo raritaanka daroogadan, iyada oo uu ninkaas uu helayay helitaan dhammaystiran ee xiriirada caalamiga ah sidii uu isugu xiri lahaa guud ahaan raristan daroogada ee soo gelinta dalka Ingiriiska. kiiskan waxuu ka mid yahay kiisaska daroogo ee ugu qiimaha badan aan ku faahfaahiyay bartaas. runtii kiisaska qiimahoodu daroogada markii laga hadlayo uu malaayiin kor u dhaafay. yacni daroogada la siday ayaa cadadkeedu waxa uu gaarayay markii lacag dollar loo turjumo malaayiin dollar, in ka badan 20 milyan oo dollar. hogaaminta haweeneydan oo lagu magacaabo Kouser waxay ahayd mid runtii si xirfad leh loo qorsheeyay, isla markaana waxa ay howlgelisay saraakiil daacad u ah runtii waa caruurteeda. sheekadan waxay aad u xiiso leedahay marka laga hadlo dadka ka shaqeynaya daroogadan. si ka duwan hogaamiyayaal badan oo ka shaqeeya dhoofinta daroogada ee abaabul iyo qorshe toos ah ku soo geliya wadamo waaweyn daroogada,
Kowthar taas waxay uga duwaneed in si ula kac ah oo runtii ay u bareertay ay shabakadan daroogada ugu dartay dhammaan caruurteeda oo xataa ay ku jiraan qaar aan gaarin da'da qaangaarka. Xamza Shafaq tusaale ahaan waxa uu jiray 17 sano markii falalkan dambiyadu uu qayb ka ahaa ay dhacayeen, inkasta oo sharci ahaan uu yahay ilmo yar oo aan gaarin heer maxkamad. haddana noloshiisa oo dhan ayaa ay bedeshay go'aankii uu u hoggaansamay oo hooyadiis ay ku amartay oo ahaa in uu qayb ka noqdo safarkan daroogada lagu soo gelinayo dalka Ingiriiska. waxaa sidoo kale ku jiray walaalihiis oo la dhashay, kuwaas oo da'doodu ay u dhaxaysay dhammaadka qaangaarka iyo bilowga sodomeeyada. dhammaantood door ayay ku lahaayeen hawshan cajiibka ah ee ka dhacday dalka Ingiriiska, laakiin ugu dambeyn waa la fashilin doonaa, waana la qaban doonaa inta aan goortaas isla gaarin. wiilka ugu horeeya wiilka ugu weyn ee qoyskan oo ay dhashay hooyadan oo lagu magacaabo Kowthar, Junayd Shafaq ayaa lagu magacaabaa, waana 33 jir. waxa uu qaatay door hogaamineed oo muhiim ah isaga oo ka caawinayay isku dabaridka safarada iyo kormeerka howlaha. doorkiisa ee qoyskan ayaa ka dhigay mid si guul ah ay uga soo safriyaan garoonka Cancun ee wadanka Mexico daroogo cocaine ah oo isugu jirta ama ku jirtaan dhowr boorso oo waaweyn. waxaa sidoo kale la shaqeynayay Maxamed Amiir Shafaq oo isagana ah 28 jir. waxa uu ahaa midkan hogaamiye kooxdan ilmaha ah ee ay dhashay hooyada Kowthar lagu magacaabo. waxaa sidoo kale ka mid ahaa Umme Maxamed, isagu waxa uu ahaa 22 jir. isna waxa uu qayb ka ahaa dhoofintan daroogada xilli inta badan dhalinyarada asaagiisu ay ku mashquulsan yihiin waxbarashada. go'aanka haweeneydan lagu magacaabo Kowthar in ay xitaa familkeeda oo dhan ay geliso shabakadan waxa uu sii xoogeystay ama ay dadku aad ula yaabeen markii xataa lagu arkay kooxdan sodohdeed naagta lagu magacaabo Sarah Hussein oo 27 jir ah. runtii waxaa sidoo kale ku jiray shabakadan safar gabar lagu magacaabo oo 19 jir ahayd, waxayna noqotay mid ka mid ah xubnaha ugu da'da yar ee laga ay ka mid ahayd shabakadan. dibadda waxaa kala shaqeynayay qoyskan Khalid Abdulkawi nin lagu magacaabo oo 36 jir ah. waxa uu saaxiib dhow la ahaa qoyskan, taas oo uu kala qayb qaatay dhoofinta daroogada. haddaba sidee ayay wax u dhaceen? marka halkan ay joogto waxay dad badan isweydiinayaan dhaqdhaqaaqan iyo dhoofintan daroogada ay ka wada qayb qaateen qoyskan dhan sidoo ku suura galay. xaqiiqdu waxay ahayd in daacadnimada caruurtu ay u hayeen hooyadood ay ku timid in ay aqbalaan go'aankaas culus oo ah in xorriyadooda iyo mustaqbalkooda ay u baabi'iyaan hooyadood Kowthar daraadeed. sheekadan waxay ka soo bilaabatay magaalada Cancun ee dalka Mexico, halkaas oo daroogadan laga soo safriyay, iyada oo doorka ugu weyn ay lahayd haweeneydan oo hogaaminaysay shabakadan daroogada ah. waxaa sidoo kale ay ka qayb qaadatay sida baarista lagu ogaaday kiisas fara badan oo daroogo lagu soo geliyay dalka Ingiriiska oo u dhacay waqtiyo kala duwan kahor inta uusan soo bixin kiiskan. subaxnimadii 11 November saraakiisha hay-adda dambiyada ee qaranka ee Ingiriiska ee magacoodu loo soo gaabiyo NCA
iyo amniga garoonka kuwa qaabilsan ayaa si qarsoodi ah ula socday dhaqdhaqaaqa kooxdan kadib toddobaadyo baaritaan ah. markii duulimaadka ka yimid magaalada Cancun ay la socdeen xubnaha shabakadda ayaa si degan ugu soo dhex milmay rakaabka diyaaradaha ka imaanay magaalada Cancun ee dalka Mexico ee u soo socday Ingiriiska. iyaga waxay sugayeen qoyskan waxay sugayeen ilaa 6 boorso oo ay ku jireen cocaine, mid ka mid ah daroogada ugu halista badan dunida. dhaqdhaqaaq walba waa la duubayay waana la socday. waxa la socday amniga garoonka. 6 qof waa la xiray ka hor inta aysan ka bixin garoonka diyaaradaha ee Birmingham ee dalka Ingiriiska. boorsooyinkiina waa la qabtay. gudaha ayaa waxaa laga helay 180 kiilo oo cocaine ah. runtii waa cadad aad u badan marka laga hadlayo daroogada la dhoofiyo. qiimaha jumlada ee daroogadan markii loo bedelo lacag ahaan waxa uu gaarayay 5 milyan oo baan. runtii waa qiyaastii lacag aad u fara badan, halka qiimaha dhoofinta daroogadan ay ku helayeen kaliya 14 pound ilaa 4 milyan oo pound ilaa 4 milyan oo pound oo ka gaar ah. ugu dambeyntii Farzana Kowsar, naagtan lagu magacaabo, waxa lagu xukumay 13 sano iyo 4 bilood. Junaid Shafak oo 33 jir ah asna waxa lagu xukumay 10 sano iyo 9 bilood. Maxamed Amir Shafak waxa lagu xukumay 8 sano. Maxamed oo 22 jir ah waxa lagu xukumay 8 sano. Hamza Shafak oo markaas 17 sano jir ahaana waxa asna la yiri waxa uu sugayaa xukunkiisa marka uu qaan gaaro. Safar oo 19 jir ahayd waxa lagu xukumay 7 sano iyo 2 bilood. Sara Hussein oo 27 jir ahayd oo runtii ahaydna sodohda haweeneydan shabakadda xukumaysay ee Kowsar, waxa lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah. Khalid Abdulkaabi waxa lagu xukumay 10 sano isna iyo 9 bilood. waxa uu kiiskan ahaa mid ka mid ah kiisaskii ugu la yaabka badnaa ee daroogada dadka ka ganacsada, waxaana runtii xiiso gaar lahayd in ay ka wada qayb qaateen qoyska Kowsar oo gaaray ama isugu jiray caruur ay dhashay, sodohdeed iyo ilmo yaryar oo aan qaan gaarin xataa. kiisas kale oo daroogo ayaa ka dhacay dalka Ingiriiska xilliya aan dhaweyn, kuwaas oo iyagana xiiso lahaa. waxa ka mid ahaa kiiskii bishii Febraayo 2016 Majid Hussein lagu magacaabo ayaa hogaaminayay kolkaas oo boorsadiisa garoonka Birmingham isagoo oo soo galaya laga helay daroogada heroin, taas oo keentay in baaritaanka la sii balaariyo ilaa gurigiisa, halkaas oo laga helay daroogo hub iyo 300,000 oo kun oo pound oo ah lacag cadaan ah. waxaana lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah. waxaa sidoo kale lagu amray inuu bixiyo magdhowga 295,000 oo pound. waxaa sidoo kale jiray kiis dhawaan ahaa bishii November sanadkii 2021 Mohamed Uziya Rashid oo 35 jir ah ayaa waxaa lagu helay 18 kiilo oo daroogada heroin ah oo uu ku siday boorsadiisa isagoo ka soo degaya Ingiriiska. maxkamaddu waxay ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah. kiisaskan dhammaantood waxay cadeynayaan in lacagta degdega ah ee sharci darada ah ay mar walba ay ku dhamaato xabsi, burbur iyo khasaare aan laga soo kaban karin. runtii waxa ay dadkan dhammaantood ka faa'iidayeen lacag tiro badan, laakiin ma aha mid
noqoto faa'iido waarta. sheekooyinkan waa kuwa ugu xiisaha badan ee ka dhaca dalka Ingiriiska marka laga hadlayo ka ganacsiga daroogada iyo dhoofinta daroogada. warbixintan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa, laakiin sheekooyin kale oo runtii xiiso leh oo quseeya kiisaskan daroogada iyo dhoofintooda ee la isaga gudbiyo xuduudaha ayaan halkan ku wadaagi doonaa. magacaygu waa Xuseen Xaaji Xasan, markale kusoo dhawaada barteena YouTube.